مسؤولين تكلم الدولة حمناها كسر KSC هي أنت هالكسر غير شدماتي وسلامتي runtii maanta waa maalin kale oo ku asaysan isbeddelka ay dowladda Puntland ku doonayso inay bulshadeeda ku horumariso waxaan ognahay intay xukuumaddan jirtay waxay markii horeeto xoogga saartay labada qaybood ee dowladdan ay ka kooban tahay adeegyada bulshada oo ah qayb ciidan ah iyo qayb rayid ah intaba waxay heli jireen tababaro muddooyinkii la soo dhaafay kooban oo inta badan dalka dibaddiisa lagu soo siiyo si looga haqabeelo oo loo helo nambarkii hore ka badan xukuumaddan waxa ay soo kordhisay in la helo xarumo lagu tababaro oo tayadoodu sarreyso oo looga kaaftoomi karo tababaradii dibadda loogu qaadi jiray ciidamada iyo shaqaalaha saad ogtihiin 2 sano u dambeeyey waxaa xoog u socday tababarada la siinayo ciidamada ee dalka gudihiisa lagu siinayo iyadoo la furay 4 dugsi oo tababaray maanta waxaan joognaa in aan daah furno si uu shaqadiisa u qabsado maxadka tababarada shaqaalaha ee dhinaca maamulka ee Puntland isagoo kaashanaya maxad aad u weyn oo Kenya School of Governance oo gabadhii halkii hadlaysa sheegtay in uu soo bilowday 1930 wax 100 sano ku dhow ayuu marayaa in uu dadkiisa tababaro Afrika waxay u baahan tahay dad leh capacity ay ummadooda ku shaqeeyaan waagii hore Afrika dibadaha Yurub iyo wadamada kale u dooran jirtay tacliinta tababarada waxay ku guuleysatay inay dalkeeda ku tababarto Soomaaliya dalalkaas Afrika ay qayb ka tahay muddadii hore dalka Soomaaliya uu xorriyadiisa jiray dibadaha ku tababari jirtay muddadii dambe gudaha u soo wareegtay laakiin Soomaaliya waxa haleelay burburkii dowladnimo ee aan runtii nasiib darrada ah ee soo maray Puntland oo Soomaaliya qayb ka ah waxay tiigsanaysaa inay dib u kabasho ka samayso siday bulshadeeda iyo dadkeeda ugu adeegi adeegaas socda runtii waxa uu qayb ka yahay dadaalada faraha badan ee hadda la doonayo in wax badan lagu soo noolay waxaan runtii halka laga sheegay in maanta hawshaan la soo gaaro maraaxiishii laga soo maray oo shaqaalaha in dib loo fiiriyey la iskriin gareeyey la arkay shaqaale ayaan shaqaale ahayn dib loo milicsaday xirfadahooda iyo aqoontooda hadda waxaa kaabiga saaran oo bisha koowaad hirgeli doonaa isbeddelkii lagu sameeyey heerarka ay kala yihiin shaqaalaha oo sida la sheegay 3 heer loo kala bixiyey waxaa kaloo isna miiska saaran barnaamijka hawlgabka wuxuu barnaamijkan dabadiis hayaa qofka markuu shaqada soo galayo heerka uu ku soo galayo sida uu u dalacayo markuu dhammaysto khidmadda uu bulshadiisa u haya inta ka dhiman noloshiisa sida uu sii joogi lahaa intaasba waa ummadaha horumaray ama hadda jira waxa ay u isticmaalaan shaqaalahooda oo ah lafdhabarka bulsho kasta oo meel joogta runtii arrimahaas waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwo aad u hirgala oo waqti la geliyo waxaan weli ku jirnaa daldhis iyo hay-adihii dowladda inaan dib u yeelno Puntland waxay martay tallaabooyin horudhaca oo ka horeeya qaybo badan oo Soomaaliya oo weli la daalaa dhacay duruufaha dhinaca amniga haddii aan waqti la gelin in dalkan uu xasilo
in dalkan dadkiisa loo adeego wuxuu dib ugu noqonayaa noloshii adkayd ee maalmo qalafsanaa ee Puntland iyo qaybo ka badan hadda ay ku jiraan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxyaabaha la rabo in laga koro waxa weeye in qofku uu shaqada ku soo galo si imtixaan isagoo aan u marin in cid ay wastayso ama inay reer keenaan in loo barbaariyo inuu awood xirfadeed yeesho inuu berri ka maalin uu fahmo dowrka uu ku leeyahay bulshada haddii qofkii uu ku yimid marka hore safarda haddii uusan tababar helin waxaa dhacaysa sida mararka qaarkood hadda dhacaysa in qofku uu u malayo hay-addan inay reerkiisa geeyeen reerkiisa iska leeyihiin inuu ka taga bay adkaan doonto sida hadda meelaha qaarkood ka taagan oo yaabka haddii hay-adihii dowladda aan ka dhigano shirkado reere leeyihiin ama dad leeyihiin ma yeelan tahay noloshaan quruxda badan oo maanta aan haysan inay jiri karin ma jiraysaa markii aan kala googoosanay dalkii wixii dhacay soomidin ogeyn waxaan u baahan nahay dadka marka waa bini aadan hadda wixii la geliyuu leeyahay waxaan u baahan nahay dadka inaan tababarno dadka inaan u sheegno dowladnimada iyo sida ay tahay mar walba oo aqoontu ay sii karadho waxaa sii kordhaya garaadka dadka mar kastoo garaadka dadku sii kordhana waxaa sii kordhaya quruxda nolosha waxyaabaha hadda aad arkaysid oo aniga aan la kulmo yaab kale waxa weeye reer socdo intay ku yimaadaan waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa waaxda maamulka iyo lacagta ya haddaad si kale u fiirisid reerkaas waxay ku soo heshiin inay dowladda dhacaan ma wax kale ku fasiri kartaa adin ya wax kaloo lagu fasiri kara male hadday intay ku yimaadaan ku dhaha maamulka lacagta maxaa ka rabtaa haddaad tahay ya waxyaabaha oo runtii dhaawacan u ah inaan kasoo bogsoonno u baahan weeye ma uga bogsoon karno ilaa aan dadkeenna wax barno oo uu garto qofkani inuu yahay adeegyo bulsho isna uu leeyahay waajibaad xuquuqna uu leeyahay bulshada dowladda dhisatay qof kastoo bulshada u shaqaynaya waxay balan qaaday xuquuqdiisa inay meel saarto hadday ahaan lahayd xuquuq mushahara hadday ahaan lahayd xuquuq tacliimeed hadday ahaan lahayd mid caafimaad hadday ahaan lahayd midda hadda aan ka sheekeynayna oo howlgalka intaas waa waxyaabaha dowladdaas 23 sano lasoo dhaafay ay maalinba geed usoo fadhiisanaysa haddana weli geedii uu sii socdo oo la rabo in la sii horumaro dal kasta oo dunida ka jira wuxuu ku jiraa horumar joogta horumarku ma istaago xataa dowladaha horumaray weli waxay raadinayaan horumar maadaama horumarku uu yahay waxaa bini aadamka mid baa dhimanaya mid baa dhalanaya noloshu waa soconaysaa casrigu waa isbedelayaa shaqadii wixii shalay lagu shaqayn jiray maanta laguma shaqaynayo tiknolojiyadii shalay lagu shaqayn jiray maanta laguma shaqaynayo marka waxay u baahan tahay horumar joogta ah iyo tababar joogta ah oo la rabo in uu mar walba qofka la qabsado hadba xaaladda uu maraya iyo duruufaha ku xeeran sida ay yihiin si loo helo oo ugu dambaynta waxa la raadinayo waxa waye si loo helo nolol xasilan oo degan oo qofku qanaaca fadal badan lagu qabo marka geedi badan iyo dadaal badan baa lagu jiraa inta halka fadhida iyo inta maqan waa inta bulshada faraha badan ee Puntland u adeegayso bulshadii maaha bannaankay taagantahay waxaa la rabaa amnigooda iyo sharciga waxaa la rabaa law enforcementiga inuu dhinac u shaqeeyo waxaa la yidhaahdo service deliveryga oo hay-adana waxay ka shaqeeyaan amniga iyo maxkamadaha booliiska iyo maxkamadaha iyo xabsiyadu waxay ka shaqeeyaan sarreynta sharciga iyo dadkii sida sharci loogu hayn lahaa uga dambeynta loo sugi lahaa hay-adaha madiinaga waxay ka shaqeyn karaan si noloshii ugu macaanaato dadka siday nolosha ugu khidmayn lahaayeen haddii ahaan lahayd adeeg caafimaad mid waxbarasho mid dhaqaale iyo wixii la mida mid xataa dhalinyarada sportskooda iyo activitygooda waxaasoo dhan dowladdu waa waajib ka saaran inay bulshada u qabato maxaa yeelay bulshadu waxay la baxaysaa cashuur ay ku timi igu adeeg marka aad u adeegaa tahay adeega uu u baahan yahay inaad u fidisid baa lagaa rabaa si ummadaasna
ay u hesho nolol xasilan oo degan. Marka dowladnimadu waa wax la rabo in laga wada shaqeeyo. Dad gaara kama shaqeeyaan, madax gaara kama shaqeyso. ilaa qofka ugu hooseeya ee gareedka hadda la sheegay ee shaqada qaybta ugu hooseysa qabanaan ilaa kan u sarreeya mid walba midka kale ayuu u baahan yahay. hadduu mid meeshiisa ka baxo sabta dhisan bulkeetigeeda kan u hooseeya haddii aad saartid kan u sarreeya waa soo dhacaya. soo sidaa maaha, waa wax saa isu saaran marka haddaa kan u hooseysid aad u haysatid inuu macno lahayn oo shaqo hoose tahay adigu kor ma saarnaanaysaa marka. hadda madaxda badankoodu waxay wadataa askar waardiyeysa soo maa ammaankooda sugta. hadduu askariga kula socon see noqonaysa xaaladda? haddii xafiiskaaga cidada xisaabkiisa see xaaladdu noqonaysa? shaqada dowladdu mana kala fiicna mana kala sarrayso, laakiin qaab dhismeed bay leedahay loogu talagalay oo la rabo in lagu ilaaliyo. shaqo oo dhanna sharaf bay leedahay, mid ka fiican ma jirto, laakiin mid walba waa loo baahanyaa muhiimadeeda bay leedahay. qofka shaqadaas hoose qabanayo hadduu xirfadeeda yeesho inuu tasare qabtaan dadku ma kala duwana xirfadaha kala duwan. marka qof walba xirfadda markaas uu u tababartay ama munaasabka u yahay ayuu ka shaqeynaya, laakiin qofna qofka ma fiicno. marka waxaan u baahannahay in caqliga dowladnimo iyo madaninimo ee aan u baahannahay inay puntland ku tallaabsato waxay ku xiran tahay sida aan annaga ugu diyaargarowno oo waqti u gelino. waxaan rabaa horta halka inaan maanta ka caddeeyo hay-adkaas kale oo dowladeed oo tababar bixin kartaa ma jirto aan ka ahayn maxaa ka tababarada course-ga aan ka hadlaya oo dhaadhiya. mararka qaarkood way dhici kartaa workshop maalin ah iyo wax la mid ah ama seminaries yar kooban oo waxyaabo gaara loogu talagalo oo aan ahayn tababar. waa in la kala bartaa waxa tababarka la yidhaahdo iyo waxyaabaha kaleeto oo maalmaha bata. waxaan rabnaa insha allah qoraalna waan ka samayn doonaa hay-adaha mararka qaarkood ka caawiyo dowladda inay nidaamka maraan, xataa haddii loo arko in ay tahay waxyaabo ma dhaheyno matalan iskuulkaa keliya wax bixin kara. maxaa yeele waxaa jira instituudyo kaleeto oo ama jaamacadaha kamid yihiin oo mararka qaarkood la siin kara, lakin waa inay iyadu dhisaan karaysaa. qof walba meeshu rabo iska aada maaha. haddii uu jiro takhasus gaar ah oo iyadu aysan haynin waa inay wax ka qaabaysaa cidda bixinaysa kooraskaas iyada oo designka kooraska iyo siduu yahay eegi doonto. maxaa yeelay maxadkaana u qaabilsan tababarka shaqaalaha ee puntland inay la socdaan. marka waxay u baahan tahay arrintaas wasaaradaha ku shaqada leh iyo agaasinka madaxtooyadu inay iska kaashadaan oo uu noqdo design effective ah oo waxtar leh. waxaan marar badan maqnaa shaqadii dowladda hay-adaha isku qabsadeen waxyaabaha aada ula yaala. war dadka madaxda hay-adahan jooga maxay rabaan? iyagaa raba inay shaqaystaan mise dalkay rabaa inay shaqeeyaan? reason la isugu qabsan kara miyaa jira? ma jiri kara. haddii uu jiro mandateska oo bini aadamka ilaahay wuxuu ku ibtilayay nin walba inuu dhaho awoodeygaan haysanaya, iyada waa la kala saarayaayo haddii alla idma gacantana waa lagu hayaa mar dhowna effective bay noqonaysaa. hay-ad walba waxay ka shaqeyso waa la yidhaahdaa. adiga tii aad ka shaqeynaysaaba kaa badan tu kaa maqan waxaad u raadinaysa ani aada uma garanaa. nin walba waxaa la rabaa shaqada uu leeyahay inuu qabsado, qofka kalena shaqada uu leeyahay ama u daayo hadduu wax uga baahdana inuu gacan ku siiyo. sida saxda asaas wey. waxaas marka ma imaan karaan haddayna tababarka gelin. tababarkan min wasiir ilaa qofka u hooseeya waa la tababaraa. bini aadamkuna tababar joogto u baahan. tababarkuna ceeb maaha iyo aqoonta kororsiga waana lagu bari karaa waana isbari kartaa, labadaba waa kuu furan tahay. marka waxaan u baahannahay in aan wax ka bedelno qaab dhaqanka dowladnimo ee duruufaha la soo maray ee qallafsanaa ee dalka soo maray uu mararka qaarkood sababayay. qiimna ma noqon karo inaad tiraahdi saasaa la yeeli jiray. sidaas haddii la yeeli jiray sidii ficnaydna ay ahayd, haddii ilaahay maanta fursad kuu siiyey inaad sidaan ka baxay dee waxaa lagaa rabaa inaad ka baxay. shalay waa shalay, maantana waa maanta, berrina way noo dhiman tahay.
marka waxaa la rabaa waayuhu inay isku khaldamin wixii shalay aan soo marnay waa history maanta waxa aan joogno waa xaqiiqo berrina waa wax aan tiigsanayno oo aan u baahanay inaan gaarno marka bini aadan raba inuu gadaal u socdo dama jiraan u malaynaya soo maa ma cid baa rabta inay gadaal u socdo qof walba hor u socda soo maa haddaad tiraahda gadaal baan u soconaya ama aad tiraahda meesheeda ka dhaqaaqi maayo dee waxaad tahay qof nool oo dhintay waxba kama duwani soo ma marka waxaan u baahannahay mar walba qofku inuu hore u socdo shalayna ay shalay noqoto maantana la joogo berrina aad tiigsanaysa waxyaabaha ay duruufuhu keeneen haddaanan wakti la gelin in laga baxo aad bay u adkaanaysa runtii 23 sanaan dowladna waxyaabihii asaasiyaadka ahaa weli isku khaldan oo public opinionka dad qaybtiis intay meel istaagaan ay ka hadlayaan wax khaldan waa weakness ummaddan ay leedahay oo rabo in laga gudbo dadku siyaasadaha adduunka waa la isku qabtaa waa lagu kala aragti duwanaa laakiin waxyaabaha asaasiga la iskuma qabto marka waxaan u baahannahay waxyaabaha asaasiga si looga baxo waxaan u baahannahay tacliinteena oo dhan inaan dib u fiirino haddii aan nahay jiilka soo koraya midda ay baranayaan iskuulaadka maxaa yeelay weaknesska aan leenahay waxaa ka mid ah in iskuulaadkeena civic education uu hooseeyo wasiirka waxbarashada loo jeedo maxaa yeele haddii qofka iskuulka markuu soo baxayo uu barbaarsan yahay waxyaabaha la bari doono waxay noqon doontaa xirfad hadda qofka la keeno iskuulka xirfad keliya u baahna wuxuu u baahan yahay qaybtood oo shaqaalaha basic educationkii laga dhiso ama laga dhiso wacyigii marka uu lahaa wasiirku waxa annaga aan barayno ha noqoto wax baahideena ku salaysan maxaa yeelay shaqaalaheenu waxay qabaan baahi adduunyada kale ay qabin maxaa yeelay bal wasiir la geray shaqaalaheena dhibaatadana haysata qofaa shaqada wuxuu ka bilaabaya agaasimo guud soo saas maaha ya qofkaas shaqaalo ma noqon kara marka qof aan weligiis shaqaalo dowlada soo noqon oo agaasimo guudaa taaliyi bal idinka warrama meeshu ka bilaabi kara oo haddana aaminsan kuwaa waxay ku leeyihiin puntland waa la wada leeyahay waa la qaybsaday waayahay aad qayb dindega gelaysaa waay ya waa konsabtiyada khaldan ya qofku waxaa la rabaa inuu iscabiro waayahay adiga puntland oo ka mid taha qayb baa ku leedahay laakiin xaggee ku fiicanta xataa ma dhegaysanayo waxaas marka duruufahaas adag dadka la rabo inay ka saaraan waa dadka halka jooga ummadda hoggaanka siyaasiga inkastoo aragtida iyo hoggaaminta uu leeyahay laakiin ummad walba waxaa dhisa waa civil secretary dadka hoggaanka dowladnimada aan dhicin ee jooga oo ah agaasimayaasha xirfadlayaasha professionalska dadkaas weeyo dadka la rabo inay bulshada dhisaan in macallimiinta injineerada dhakhaatiirta iyo wixii la mida dadkaasaa la rabaa inay bulshada dhisaan marka waxaan u baahannahay caqli saxa in aan ummaddeena ku hogaamino oo ay ku salaysan tahay inaan ummaddeena u adeegno muhiimadda aan leenahay waa midda waxaan halka ka codsan lahaa hoggaanka bulshada ay ku jiraan isimada mashaa'iikhda iyo cuqaasha waxgaradka iyo meergaradka waxa ay ka shaqaynayaan waa inay noqotaa wax ummad dhisi kara aysan noqon wax jifidooda iyo reerkooda ama maslaxadooda gaarka ah dhisi karta maxaa yeelay haddii ay dhacdo in qof walba qoyskiisa iyo jifadiisa uu wax u qabto waxaa been noqonaysa heshiiskii bulsho ee 1998 bulshadii markaas joogtay ee wada galeen ayaan beeninaynaa waxgaradkii dalkan uu lahaa hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin isimo hadday yihiin waxgarad aqoon-yahano ganacsato kulligood intay isu yimaadeen bay waxay go-aansadeen inay dhistaan puntland oo nidaam dawli ah ay ku salaysnaato habnololeedkooda maalintaas waa ay yeeli kareen inay reer walba meel ku digaa sooma reer walba meeshiisa iska deganaayo uu kari karay laakiin
xigmadda ilaahay siiyey oo aan ugu duceynayna intii dhimatay inta noolna aan u rajaynayno nolol fiican iyo cimri dheer iyo cibaado suuban waxay garatay quruxda maanta aan leenahay inaan yeelano oo hoteelada maanta aan dhex joogna yeelno oo dalkan dhaqaalihiisa isbedel oo kala dambeyntiisa socoto laakiin weli waxaa ku jira ummad kastana way ku jiraan in qalloocan oo xun oo la rabo in lasii qabto waa arrin muhiim ah in dalkan uusan dib u noqon ilaahay idankiis intaan xafiiskan joogo waxaan ka shaqayn doonaa dalkan inuu hore u socdo marna ma yeeli doono qof isku daya dalkan inuu dib u celiyo haddii ilaahay in heerkaa la gaaro oo maanta aan joogno ma aha wax iska yimid waxaa ku baxay waqti waxaa ku baxay maal waxaa ku baxay naf in la ilaaliyo u baahanta waxaan u baahannahay marka inaan dalkeenna jiha saxa aan u jeedino oo danteenna ay ku jirto waxaan runtii ku faraxsanahay in heshiiska ay wada galeen maxadkan puntland iyo kan kenya uu ahaa ikhtiyaarkii ama doorashadii saxda ahay maxaa yeelay kenya school of governance waa iskuul aada u qoto dheer oo aan arkayno shaqaalaha kenya capacity-ga ay leeyihiin oo ay gaareen inay adduunyada kale u export gareeyaan oo meelaha kale ay ka shaqeeyaan waktiga siyaasadda ah ee la geliyey tacliinta iyo dad in la dhiso waa midka keena dowladdaasi inay ka deganaansho fiican tahay dowladaha aan dadkeeda waktiga badan gelin oo aan dhisin dowladday ka tacliin fiican tahay way ka nolol fiican tahay wayna ka degan tahay aasaaska nolosha casriga ah waxaa saldhig u ah waa tacliin marka waxaan u baahannahay tacliinta inaan ahmiyadda ee leedahay aan siino qofka wax daaweynayo inuu isagu yaqaan isna inuu daaweysan yahay siduu wax u daaweeyo inuu yaqaano waa muhim haddii kaleeto wuxuu kharibayaa oo halis gelinayaa naftiisa iyo nafta kale ninaan dareewalnimo la tababaran hadduu gaari kaxeeyo isaga iyo dadka saaran maxaa laga fili karaa inuu halligo soo maa waxaan u baahannahay dadkeenna hogaaminaya ama u shaqaynaya inay aqoonta ay markaas qabaan inay u qabtaan in ay iyaguna leeyihiin dabcan duruufo badan oo qallafsan iyo caqabado badan baa welina hor yaalla laakiin waxaa muhiim ah waxa aan rabnana inaan garanayno oo iyo meesha aan u soconno meesha aan joognana aan naqaano meesha aan gaarayno caqabadaha hor yaallana inay noo muuqdaan si aan uga gurgno xeelad kasta aan u marno marka waxaan aada u rajaynayaa shaqaalaha dowladda inay ahmiyad xoog la saaraan sida ay shaqaalaha loo tababari lahaa ma raba hadda inaan aada ugu nuuxnuuxsado waxaa ka khaldan shaqooyinkeenna maxaa yeelay inay wax ka khaldan yihiin waan ogey inay wax ka khaldan yihiin maxaan rabnaa inaan ku soxno inaan shaqaalaha aqoontooda kordhino sooma evaluationka waxaan samaynaynaa markaan dadka tababarno markaa wixii ka soo baxaa ayaa waxaa soo baxaya midka aqoon darri ee haysatay inuu wax qaban iyo midka canaad kale uu ku jiro oo u baahan in laga horwareejiyo dadka ilaahay idankiisa tababaradan markay dhammaadaan puntland waxaan u rajaynayaa habka ay shaqaalaha ku xulan doonto inay noqdaan hadba sida ay performancegooda ugu fiican yihin waana la gaarayaa waana lagu siqayaa mar dhow in aqoon lagu xiro xataa marxaladda koowaad haddiiba reerihii aysan weli meesha iska jiraan oo baalansiga siyaasadeed iyo nabadgelyadeeda ay ku salaysan tahay reerka malin fiican baa laga waayay ya odayaashu mararka qaarkood saas ma yeelaan ya ama dadka u ololeeya ninkii fiicnaayo reerkiisa ma rabo mid kaluu jaabka ku sitaa wuxuu leeyahay kan ha lay qoro oo laga yaabo inay xoogaa isira xigaan ama mararka qaarkood waxay ku leeyihiin reerkaas shaqaalaha ku badan oo laba jifaaga maheen kan kale sii oo reerkiina saa waxu qaybsanaysa ninkii ii taallaayo dalkan dadkii u shaqayn lahaa ka keen reerkaaga haddiiba loo ogolaaday reerkaaga wax la siiyey
runtii doorashooyinkii hadda la galay baa wax badan naga kaafiyey magaalooyinka qaybtooda waxaa ka soo baxay laba walaalaha Soomaa ma wax dhici jiraba iyo laba isqaba awal waxa dhici jiray ninkaaga shaqaale gabar ay iska joog gabadha hadday ninka ka aqoon badan taasay leeyahay gabdhaha duruufaha kale qabaan waxa weeye wiil rag waa ku imaanayaan waxay ku leeyahay adiga gabar waxay gaba gelinay wiilkay shaqaale wiilkaaga hadda gabadhaana ka aqoon badan marka duruufahaas waxaan uga bixi karnaa in dawladdu ay ku dhiirato waddo hadhow shacabku uu ku qanci kara inay samayso haddii shacabka aan qancino oo niraahno waxaa loo guuray aqoon tababarku ka soo baxay shahaadadaan uu wataa hadhow qofku waa qancaya soo maha qanaacada bulshadeena iyo qabaa'ilkeena naftarkeeda qayb ka mida way xasiloonida siyaasadeed aan ka shaqeeyno ma aha inay wada negative tahay laakiin waxaa laga rabaa habkii aan ku qancin lahayn dadkeena oo aan u sheegi lahayn war midkaana kuu fiican annagana dalkan u fiican waa sax aqoontu mararka qaarkood qofku waxay geysiinaysaa kalsooni waxay geysiinaysaa xishood oo sida kan aan wax aqoon wax u raadin uma raadin karo laakiin haddana waxaa la rabaa mas-uuliyiintu inay gartaan in ay iyagu ka shaqeeyaan inay promote gareeyaan dadka kartida iyo aqoonta leh si mustaqbal wanaagsan u soo baxo jidku waa leeyahay idinkuna waad aragtaan dalkan puntland keligeed ma dhismi karto waxay u baahan tahay ruuxadeeda waad ogtihiin maxadyada iyo wasaaradaha halka waxaa ku tababarta dhammaan geyga soomaaliyeed isteedyada kaleeto shaqaalahooda wasaarado waxaa jira runtii si fiican u dhismay oo khibrad aqoon iyo aqoon kororsi loo yimaado waxaa ku yaala iskuulkana wuxuu ka mid noqon doonaa meelaha tababarka loo imaan doona haddii ilaahay uu ka dhigo waxaan rajaynaynaa in soomaalida kale iyo puntlandba ay ka manaafacaadsan doonto waxa ay hadda puntland haysato oo ah wax soomaali wada leedahay stagekan sida hadda la sheegay shaqaalaha puntland baa lagu tababari wax diidaya ma leh in iyagana shaqaalaha kaleeto lagu tababaro hadday kuwaas waxay ku tababartaan xataa galabti baa la tababari karaa dabcan muxuu maxadkan u baahan yahay facilities ah iyo sida loo horumarinayaa waa shaqo u taala hay-adahaas maxadkan la rabo inay ka shaqeeyaan hadday shaqaalahooda kordhin lahaayeen hadday dhismayaal u keeni lahaayeen hadday dawladdu waa dan bay u igmatay soo maa cid baa u xilsaaran ciddaasaa la rabaa inay shaqadaas qabato annaga aniga madaxweyne ahaan waxaan wasaarad kasta gacan ku siiyaa iyaganay og yihiin wixii maandeedkeeda inay ka shaqayso wax caqabad ah oo madaxtooyada uga timaada wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda ma jirto hadday jiri jirti hadda ma jirto beelow nin dheer iyo nin dhinto markaanto marsadaa la yidhaahda hadday horteeda wada fadhiyaa soo maa cid aanay waxaas ma qaban kartaan weli madaxtooyada kama dhicin bal ninkii dhaha waxbaan qabsanayaa marka walba waa qabanaynaa garab waa ku siina hadduu annaga wax nooga baahan hadduu isku fila yahay waaba sidaa askaa rajeynin maxaa yeelay isagaa u idman oo maandeed u haysta oo u dhaartay marka waxaan rajeynaynaa dalkan aan wada dhisano waa wada leenahay ma kala lihin amnigu dad gaara ma leh horumarka dad gaara ma leh serviska la qabanaayo ama adeegyada la bixinayo dad gaara ma yeelan doonaan waa waxaan wada leenahay waxaan u baahannahay maraaxilaha qalafsan ee aan marayno in aan uga baxno adkaysi iyo sabir iyo inaan isugu waadixino waddada aan u socono say tahay global baan dhex galnay adduun furan baan dhex galnay mujtamaca soomaaliya dad firfircoon waaye nin walba afkaar buu iska sita doodaha iyo hadalku waa ku fiican nahay qofku inuu demonstrate gareeyo wax inuu wax yaqaan u fiican yahay meesha shaqooyinka kusoo bandhigi lahaa wuxuu kusoo bandhigaa goobaha sheekada iyo meelaha la isugu yimaado casrigii qofka lagu qiimeyn jiray inta uu hadda yaqaan waa lasoo dhaaf soo maaha casriyada ka mid ah baa jiri jirtay gabayada iyo hadalka iyo galakafuurka waxa uu ahaa adduunka oo dhan uu soo maray qurunti dhexe laakiin hadda waxaa la joogaa dadka wax qabanaya dad la yaqaano maa dad la arko maa ya serviska hadda shirkadaha waaweyn ay qabtaan oo dhan waxaa iyo bangiyada iyo waxaa u shaqeeya soo maaha
dad waddan kala jooga saas oo lama socotaan ya call centers America shaqo ka socota ayaa waxa ka shaqeynaya dad garow jooga muhiim ah qofka shaqeynaya laakiin aqoonta iyo tiknoolajiyada in la arkaado marka waxaan u baahanahay xirfadda inaan u gudubno waxa aan qiimeynayna waa maxsuulka marka waxaan u baahanahay maxsuul qurux badan soo yimaado Puntland hoggaankeeda iyo shaqaalaheeda waxa lagu qiimeyn doonaa marka qofka uu ka soo dago airportka garow oo uu soo baxo uu arko xasilooni uu arko dad shaqaysanaya uu waayo wax violence sida soo ila qofka Soomaali markuu yimaado markuu ugu horeysa maskaxdiisa wax ku soo dhacaysa amni darro Soomaali uu waayo amni darro oo dadka ganacsiga jooga naftirkooda markay qiimeeyaan inay fursadaha jirto ee hoteelo noocan oo kala dhistaan oo noloshu ay xasisho oo la arko dad wada suud qabo oo labisan oo shaqo u socda aroortii 6 aroornimo 7 aroornimo waxaa meeshaas laga qiyaasanayaa inay meel horumar ka socdo yahay laakiin haddii la arko meel 4 saac la soo kacayo ama 10 subaxnimo oo baararka la fadhiyo waxay muujinaysaa meel aan shaqo ka socon marka waa sax jiil fara badan iyo dad fara badan ayaa weli waxay yihiin shaqo la'aan oo xaqiiqo jirta awoodeenna asaas ah laakiin inta la rabo inay u fikirto waa inta oo la rabo inay ka saarto jiilka hadda shaqo la'aanta iyo kuwa faraha badan ee iskuulaadka soo baxaya jaamacadaha dadkii la rabo inay howlgeliyaan waa dadka haddii dadkani ay ku talagalaan inaysan shaqada ballaarin kuraastana iyaga fadhiyaan jiil fara badanna soo baxay halkaas maxaa ka dhacay ya isku dhac baa ka dhacay sooma clash baa ka dhacay waana khatar marka intii kursiga lagaa kacsan lahaa kursi kale abuur ya soo saas ma ya sal kale abuur oo adiga qofka u banaysid haddii kale kaagaa lagugu tagay marka waxaan u baahannahay shaqooyinka inaan kobcino shaqooyinkana diversity aan ku samayno shaqooyinka kuwa dowladda keliya ma waxaan u baahannahay inaan abuurno shaqooyin wax soo saar oo dadku naftirkooda private sector laakiin organized ah oo ka duwan inuu qofka dukaankiisa furto kaa adigu kuma weydiinayo laakiin waxaan u baahannahay in warshado la furo waxaan u baahannahay sectorska xoolaha iyo caafimaad iyo wax soo saarka isagana in la xoojiyo si ardada jaamacadaha ka soo baxay ay shaqooyin uga helaan oo kambaniyo ay awood u leeyihiin in ay shaqaaleeyaan shaqaale fara badan marka muhiimaddan aad ogtihiin inaan ku dheeraado ma rabo laakiin waxaan uga gol leeyahay muhiimadda uu maxadkaan leeyahay inay muhiim tahay oo ah waddada keliya ee aan uga bixi karno shaqo xirfadaysan oo xasilan waa muhiim shalay haddee noo suuro weyday maanta noo suuro weyday waxaan rabaa maanta inaan ku faradeegno marka arrintaas waxaan aad u rajaynayaa maxadkan inuusan ku xirin tababarada uu bixinayo keliya kuwa hadda design garaysan ay dhici karto in dowladda Puntland laga caawiyo waxaa la rabaa inuu diyaariyo koorsooyin kale oo aan ahayn kuwa hadda ku jira heshiiska oo tirada ah oo tiradaa la labalaabo halkii loo keeni lahaa ninkaan laga rabo oo dowladda iyo maxadka designkaas ka kaashadaan haddii kun hadda qorshe loo hayo waa in kun kale la helaa oo iyadana ama budgetkaas wax looga jabiyaa ama dowladdu bixisaa laakiin designka idinkaan laga rabo maxadkan dadkii ka shaqayn lahaa siduu u noqon lahaa center isku filan idinkaan laga rabaa inaad fikirka iyo ra'yiga la timaadaan waxaan ii sheegayaa keliya inaan anigu diyaar u ahay in aan kobciyo oo gacan siiyo maxaa yeelay dadka aaminsan baan ahay bulsho waxa lagu bedeli karaa waa tacliin iyo tababar ay hesho hadday ciidan tahay iyo hadday bulsho tahay inta aqoon talana waa sidaas in badan oo naga soo horjeeda oo aanan aqoon wax ku rabin baa jirta sooma ya oo aaminsan in si kale wax lagu goosto cadgoorsi bay dhaha sooma haddii aad fursadda dayacdaan oo dalka idinku hogaami weydaan markii burburku dhacay intii aqoonta lahayd inta ugu liidatee noqoto soo saas ma noqoto soo dadkii ma joogaan mise dadka qaybtiisa waa yaryar ahayd kolla dad yaryar ma arka meeshaan aan u jeeday
dadkii aqoonta lahaa dadkii ugu liitay noqday dadkii dabaqada hoose ayaa qori iyo xoog bay tagtay soo maa reer miyigii baa dadkii qabsaday marka haddaadan rabin in xafiisyadiina laga dhigto sidii xafiisyadii waagii dalka burburay laga dhigtay hadda ku fara adeyga sidaa ugu fara adeegaysaan waxa waaye inaad aqoonta dowladnimo ku xisaan laakiin dadkan weli bulshadeenu dhaqankii waa nagu jiraayo qof walba suu fiican yahay aqoonyahan ugu moodaysid baa markuu wax yar uu waayo buu wuxuu la soo baxayaa shaararkii kaleeto soo maa shaararkii ku qabsa ku qadimaysid iyo waxyaabo wakti adag la soo maray iyo meesha lagama bedeli karayo waa lay ninka haddii intuu imtixaan galo waa wuxuu leeyahay cadaalad ma ahayn waa lay musuqmaasuqa min fadlak erayadaas burburiyey bulshadeenna ciddii bedelleyn hala helo dabcan hadalladan maanta waxaa u oranaya inaan maalin walba meel la soo istaagno 23 sanaan jirnaa oo institution baan leenahay haddana maalin walba idaacadayn ay ka baxayaan waxyaabo ceeb ah oo dowladnimadeena halis u ah wax la qaadan kara maaha aad bay u adagtay waxaan u baahannahay dowladnimadu waxay u baahan tahay in wax walba oo lagu hirgelin karo oo wakti iyo maal iyo maskaxda in la geliyo inaynan dib u noqonin waxaan insha allah rajaynayaa maanta iskuulkan inuu noqdo marxaladii labaad oo tababarka ciidanka aan gudanay aan haddana qaybta rayidka ah aan u gudanayno inuu dalkan insha allah horumaro waxa uu mudan yahay iyo xurmada uu mudan yahay sida aan xurmada askariga uu mudan yahay loo siiyey ayaa waxaa la rabaa shaqaalaha rayidka ah inoo siiyo haddii labadaa component dadkan ay ka fiicnaadaan waxaan rajaynayaa siyaasiyiinta mar walba hoggaanka dalka haysa inay fiicnaan doonaan maxaa yeelay qof walba bulshadiisu ka mid ah hadday bulshadu fiican tahay madax fiicanaa soo baxaysa hadday bulshadu xun tahayna madax xun baa soo baxaysa waa shay dabiiciya marka bulshada inaan fiicnayno way ujeedadeenu labada marka laga soo tago qofka marka uu marxaladaha iskuulka soo marayo uu adeegga inuu adeeg baxsho u gaaro waa labadaas qaybood ama waa ciidan qaybihiisa kala duwan ama waa shaqaalo rayid hay-adaha siyaasiga unbaa soo raaca waxaanan civil service ku jirin weliba saddexda hay-adada dowladnimada la sheego hay-adda garsoorka shaqaalahay ka mid tahay waa hay-adaha golaha maaragtay wakiilada iyo golaha xukuumadda labadaas ayaa waxaa la yidhaahdaa waa hay-ada siyaasiya oo gunooyin qaata soo saas maaha inta kale waxay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda hadduu ciidan ama waa ciidan ama waa shaqaalo rayid firdi buu rabaa ka shaqeeya marka intaanna waa inta isbedbedesha oo teeranka leh inta kale waa inta joogtada ah oo dallacda madaxweyne meel looga dallaca buu leeyahay wasiirna ma leh wasaaradda unbaa laga bedeli karaa mar labaad wasiir waa noqon karaa laakiin teerankiisa markuu dhammaysto inuu ka baxa xukuumadda kale waa ka mid noqon karaa laakiin shaqaalaha kale oo dhan haddaanan uusan isagu dembiye la imaan ama waxyaabaha sharciga u dhigan shaqaalnimada uusan isaga saarin cidna shaqadiisa kama saari karto bal hadda waxaaba socda shaqadiisa waqtigeed markuu dhammaystana inuu heli doono xuquuq howlgab ah marka fursaddaas aa haysataan runtii si fiican uga faa'iidaysta aqoonta waqti geliya aqoonta aa barataana practice gareeya intaasaan aniga hadalkay kusoo gunaanadayaa aad baan ugu mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay shaqadan weliba aan ogahay inay marar badan khatar u gashay inay istaagto laakiin loo dhabar adeegay lagu guulaystay inay hirgasho waxaan mar labaad u mahad celinayaa Kenya School of Governance oo aan rajaynaya iyadana inay heshiiskaas iyo shaqadaas ay ballan qaaday inay fulin doonto si wanaagsan waxaana u rajaynayaa haddii ilaahay ka dhigo inuu qorshaha noqdo qorsho miro dhalo oo hirgala oo Soomaaliya inteeda kalena uu noqdo mid ay ku dayato ama ay ka faa'iidaysato labadaba aad baa u mahadsantihiin